السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan qiso aad iyo aad cajiib ah. fadlan waxaan u saraftaa subscribe-ta, like-ta, nasaar siina share garee. qisadan waxay dhaxmartay nin yahuudi ah iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu lahaa dariskaas oo ahaa nin yahuudi ah. yahuudigan wuxuu ahaa mid isku dayo inuu dhigo nabiga sallallahu alayhi wasallam, laakiin muusan isku dayaynin asagoo ka cabsanayo asxaabta nabiga sallallahu alayhi wasallam. markii habeenka la gaaro oo dadka ay hurdaan, wuxuuna ahaa mid qaada wasaqda iyo qodxaha oo ku tuura nabiga sallallahu alayhi wasallam gurigiisa hortiisa. goorta oo soo kaca nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu arki jiray waxyaabo wasaqda iyo qodxaha. wuu qosli jiray wuxuuna garan jiray inuu sameeyay arrinkan dariskiisa. wuxuuna ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam mid iska qaada qodxaha iyo wasaqda, wuxuuna ula dhaqmi jiray asiga dabeecadtan u wanaagsan iyo maxabbo iyo kalgacayl, ilaa uu aaga yimaado xanuun aad iyo aad u daran. wuxuu ahaa mid saaran sariirta oo aad iyo aad u xanuunsan, ilaa uu aaga sigtay inuu geeri ku dhowaado. maalin maalmaha ka mid wuxuu maqlay ninkii yahuudiga ah albaabkiisoo la garaacayo, kaas oo garaacay nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam. wuxuu amray ninkii yahuudiga ah inuu soo galo nabiga sallallahu alayhi wasallam, wuxuuna ugu duceeyey inuu Ilaahay caafiyo. yahuudigu wuxuu nabiga ku dhahay, sidii ku ogaatay in aniga xanuunsanahay? nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu qoslay, wuxuuna ku dhahay, waxaan ka waayay qashinkii ay gurigay hortiisa soo dhigi jirtay. waxaan is dhahay maxaa ku dhacay asiga? ninkii yahuudiga wuxuu ahaa mid ooyin aad iyo aad u daran, wuxuuna la yaabay akhlaaqda nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sida uu saamaxay. nabiga wuxuu u qabtay shahaadateynka ninkii yahuudiga ah, wuxuuna soo galay islaamka. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.